waxa kamida qofka mu'minkii inuu rumaysan yahay noloshaba inuu arko inay imtixaan tahay maadaama uu arkayo noloshu inay imtixaan tahay inuu adduun waayo ama xoolo waayo ma sheegayso in rabbi necab yahay ama in dhibi soo gaadhay bal waxay sheegaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay inna allaha idaa ahabba qawman ibtalaahum ilaahay duul hadduu jeclaado wuu itixaamaa waa la itixaamaayo waxaa la eegaa bal intay rabbi ku kalsoon yihiin dhaqaalaa laga itixaamaa caruur baa laga itixaamaa adduun baa laga itixaamaa mashaakil kale soo gaadha noloshaa ka hor timaada xadiidka imaamu axmed baa warinaya saxiix iljaamici saqiirkana uu ku yaala waxaa ka mid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu leeyahay ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa uma saalixuun uma alamhalu falamhal mafhuumka uu qofku nolosha u arkaa waxay tahay dadka waxaa u dhib badan nebiyada inta nebi dhib soo gaadhay qofay soo gaadhay ma leh nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inta dhib soo gaadhay gaal baa ka xoog batay oo cadaadiyey oo uu ka hijroodoo baxsaday oo ka daba duulay oo meel cidlaa uu ku qabsatay oo gaajo qabsatay oo gaajo daraaddeed nebi moxamed laba dhagax buu caloosha ku xidhay min saxaabiya intuu u yimi yidhi ilaahay rasuulkiisiyo bal waxaan haystaday gaajada beerku ka qaaday marada saxaabigu isagoo hal dhagax xidhan nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam maraduu caloosha ka qaaday saa laba dhagax baabuu nebi moxamed xidhan yahay idan gaaju soo maray oo ciil gaaleed buu soo maray oo dhib buu soo maray oo dagaal buu soo maray oo wax walbuu soo maray ambiyada kale qur-aanka ilaahay kaga warramayaana sidoo kale bay ahaayeen ولذلك ما إلهي قرآن كوحو كليه ضدك بوحا وامتحان بدنا نبيده ثم الصالحون كوا ونكسن باكوحيقة ثم الأمثل فالأمثل بنبوي سيدا يدتك وكلا فضي بدي بي مرانك قاركو وكلا امتحان بدي حديث كإمام الطبراني باصو صاري صحيح الجامع الصغير كرواكو قري إذن وحين لأن هي نبو عليه الصلاة والسلام وحلي قفك هدي دينتي سحوق وكتشره بلدا لو كرديا ابو نبي قول امتحانك هداي دينتي سفضيت كجيرنا ولا قفضيدي امتحانك ابو نبي قول عليه الصلاه والسلام اسنا صحيح الجامع الصغير كو قري ارمها سو دمه waxay tilmaamayaan iyaguna inaanu qofka muslimka wax warwargaliya ahayn walidalik balaayooyinka dhaca qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay in ilaahay dambi kaga maydho والنبي يقول عليه الصلاة والسلام حديث في صحيحين كيالي ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب قفك مؤمن كمهل يشو دال هي وصب مرض بكانتون مهل له ولا هم ولا حزن